ka fikir dhammaan dadka aad maalin kasta la kulanto gaar ahaan kuwa aad sida joogtada ah isu aragtaan waligaa ma aragtay mid ay u muuqato inta xun oo keli ah master xume master dhaliile ama master dhibane waan hubaa in hadda uu ku sawiran yahay mid ka mid ah dadkan oo uu jiro qof aad garanayso oo leh dabeecad ahaan waa dad laga helo meel kasta waqti kasta waa la arkaa xilliyada shirarka muhiimka ah fikradaha aadka u wanaagsan ma jirto mar aad weynayso aan eegno sida aad uga leexan karto saddexda nooc ee dadka ka midka ah xilli kasta oo aad aragto master xume wuxuu dhibaato ka dhex arkaa xal kasta oo la keeno wuxuuna jecel yahay xamaasada ku dhex jirta fikrad kasta oo la keeno waa qof markasta ku celceliya waa sidaan qaabka markasta waxaan loo sameeyo maskaxdiisa waxay la mid tahay gaari ku dhex dhacay dhiiqo oo laga saari waayay marka la furo daaqada fursada isaga waxa uga muuqato hoos madow oo aan la gudbi karin wuxuu dilaa awoodaada iyo go'aankaaga wuxuuna isku dayaa in xawaaraha horumarkaaga uu yareeyo haddaba qofka noocaas ah yuusan qayb ka noqon noloshaada kana fogow haddii aad aragto nolol wanaagsan way kaaga dhammaanaysaa haddii qofkaas uu noloshaada ama shaqadaada qayb ka noqdo ugu dambeynna adigu kaa dhigi doonaa master xumo waa haddii aadan ka fogaan qofka wax kasta dhaliil ka keena dadka wax kasta dhaliila waa kuwa lagu garanayo in ay hayaan wax xun oo ay qof kasta oo ay arkaan sidoo kale waxay ka shaqeeyaan faafinta siraha ama xog qaldan oo ku saabsan dadka oo dhan waa dad adeegsada xanta iyo wararka aan jirin si ay u maamulaan maskaxda dadka caqliga yar haddaba iska ilaali dadkaas sababtoo ah adiga xitaa waad ka mid tahay dadka ay wax ka sheegayaan marna kama badbaadaysid dadkan ma jecla kuwa xirfada wanaagsan leh ee sida fiican u shaqaysta waxayna alaabahayaan arrin culus oo ay qofkaasi ku dhaliilaan waxay filayaan in dhaliishaas ay dadka indhahooda u soo leexiyaan si aysan u arkin wanaagga qofkaas uu sameynayo weligaa ha ogolaanin in qof aan waxba qabsan karin inuu kuu sheego sida wax kasta loo sameeyo qofka markasta dhibanaha ah qofka noocan ah ma arki doontid weligaa isagoo qaadaya mas-uuliyadiisa shakhsiyadeed wuxuuna arkaa in nolosha dhibkeeda uu dhibane u yahay iyo in cadaalad ba uusan helin xitaa haddii la dallacsiiyo haddii la abaalmariyo dadkii laga dhigo qofka ugu wanaagsan waxaa maskaxdiisa ku qafilan in dhibane uu yahay guusha wuxuu u arkaa nasiib darro guuldaradana sidoo kale ma aaminsana in howlkarnimada lagu gaaro horumarka waxayna caan ku yihiin in aysan badadaalin waxaad ku garanaysaa cudurdaarka ay mar kasta u hayaan wax kasta haddaba waa muhiim in aan la saaxiibto dadka sida wanaagsan u fakara sababtoo ah dabeecadahooda waxay ku siinayaan awood aad guulo waaweyn ku gaarto laakiin dadka xun way ku niyad jebinayaan waxayna ku horseedayaan in iyaga aan la mid noqoto oo aadanba noqonin qof yool iyo tiigsi leh weligaa ha ka fikirin in aad noqoto qof keligii guul gaara balse ka walwal sidii ay guul ku gaari lahaayeen kooxda aad shaqaysa ama aad wax isla barataan waxa ugu wanaagsanna waa in adiga dabeecadaada aad hagaajiso marka hore dadka ma bedeli kartid laakiin adiga waad isbedeli kartaa taas oo sababi karta in kuwa kale ay kugu daydaan